maalmihii ugu dambeeyay waxa caasimada Soomaaliland ee Hargeysa si weyn looga hadalhayay dhacdo ugub ku ah caasimada Soomaaliland ee Hargeysa dhacdadan oo ahayd aroosad la sheegay in gabadhii aroosada ahayd masciinad looga soo dhigay nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka isla markaana iska dhigayay in uu yahay gabadha. Arrintan ayaa waxa loo gudbiyay maxkamadda isla markaana ilaa hadda gacanta ku haysa. Arrintan si looga gungaaro isla markaana loo helo xaqiiqada jirta ayaa waxa uu telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV maanta u guurgalay isla markaana uu soo wareystay qoyskii aroosku ku eedeeyay in ay masciinad uga soo dhigeen aroosadii uu guursanayay nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka. Qoyskan ayaa waxa ay ka jawaab celinayaan isla markaana arrintan ay ku tilmaameen in ay tahay mid lagu aflagaadeynay isla markaana sharaftooda mid looga dhacayo. Sawdaahir oo inta walaasheeda ma garatay waxa dhacday in walaashay reer ay ehelka iyaga ah in adeerkay shaqaale u noqotay ayaa dhacday. Shaqaali markay u noqotay ay maxaan ku raayay inaan iska barteen inantii baa leeyahay inantiini waxa la tagay inaan maxaan ku haytiisa loo garanaynin waxaan ku yiri walaalo ii soo qabo baan ku yiri iigu yeedha waanu yeedhay inantii way ii timid Cabdiraxmaan waan la sheekaysto waxaan ku yiri walaal ka waran ninka iqdhacada la sheegay waxay tii walaal waan isjeclay waan isguursanaynaa ninkii baa lambarkiisa la soo siiyay lambarkii baan garaacay waxaan ku yiri Cabdiraxmaan ma tahay haabigu yiri waxaan ku yiri walaal dambayga ka soo gashay haye la tagaysay baa baan ku yiri inanta aad la tagaysay walaasheed baan ahay qof weyna looga qurux badan yaroo laga kaxaysto maxaan ku dhaayay xaafad laga kaxaysto dadkoodii nool yahay ilaahay baa arsaaqada bixiyo oo arsaaqadu waa mawjiid ee walaal u kaalay wal dadkii dhalay baan ku yiri waayahay biigu yiri Cabdiraxmaan wiiga aqbalay wuu yimid markii uu yimid Cabdiraxmaan aabahay baan wuxuu aaba laba been xalaal waa la isasiiyay siibu aan siinay ana walaayada soo diray walaalkay buu ku wareejiyay walaalkay hadii ku wareejiyay aabahay inanta markii la meheriyay ayay tagtay aaba sidii ugu yimid aaba uu ku yiri aaba ma haysto aaba uu kaxeeyay hadii uu raaciyay wuxuu aaba uu naga tagay aaba dardaarankiisa oo nasiinaya aaba dardaarankii markuu nasiiyay anagu dardaarankii baan raacnay 11 qof baan ku tagnay meesha 11 qof aroosada mooyaane 10 kale waan soo noqonay iyo milxisadii waanu ka nimid 10 qof baan ahayn milxisadii aaminaanu ka nimid hadii aan ka nimid milxisada aniga dhalay waa wala inantayda waa tambaleeg ko way Soomaal wax ku tira boqor war waqaata tabto kor waqaata kolka alla wax ka siiyo banka qaadin gabadheeda sida ku hooya sidii waa gabadhii lagu hooyay sidii ya lagu kaystay gabadhii saati haddana arrinta dib igu soo noqotay anigu wanaag mooyo xumaanba kama aan talinayni maalinta beenkiinanta arooska la hooyay ninkaasna wuxuu markii hore noo sheegay inay inanta dirlaa isku guursanayaan dad jaarka ummaduna si aan lumran lagu gaxeeyo biyidi dirlaa inagu guuriyay inanta dirlaa baan ku raacnay annaga wixii aan u qaban karina u qabanay jaarnimo hadalkan ka codsanay markii hore ninkaas naga diiday oo yiri baa la yiri degdeg leeygo hooyo waan gaxaynay 11 qof aan ku gaxaynay inanta marxiisada iyo inanta aroosada oo kaliya kaga nimid hal saac baan daqiiqad gurigeed baan guriga joogin hal saac ma wada joogin 9 iyo barkii barta ka tagnay 10 oo buraana waa soo noqonay haddaan ahaana guriga la iga raaciyay fasaxii taxaankiiranta taariikhda gabadhii masciinada looga sii dhigay aroosada waxayna sheegtay guriga baan la geeyay gurigan kula noolaa kadibna markaan fiidkiisa xanaan ugu tununay ma dooran jeynantan habarka ku ah aan bartay ikan anaga dibaan iska kabin jaxan jiray ma barasho ma baahniyay igada ninkan kharashkan uu ka baxay uu leeyahay kharash ma iga baxoon doonaya yuu ka doonaya ciduu ka doonaya waayo waxaan leenahay halka kharashku halkaas ka doonaysa ala yaqaan anaga kharash ciidu nugma mana rabno asagu baan ka maqlayna la soo dhigay meesha waxaanu shaqadeed kulama inantii milxiisada ahayd waa taa dumarkii hablihii galbiyey waa kuwa gurigii laga raaciyey waa kan goobjoog baan ahaa markii loo feelayay ee la raacinayay ayga wada baxeen ninkan la sheegayay yaraniyo naagta lagu sheegayaa inuu jiro iyo inuu nooyay de wax qalbiga igu tiramaan waxaan aqaanana maan waxaan meesha ka filayay maan waa sheeko bari dambe oo toonjiga meesha la uu soo baxay oo ninku muxuu ahaa nin mariya xilan ba habeen loo yimid oo waa tiin erinado oo makiiba ahaa inanka waa aragtay ninka la soo dhigay meeshana waa aragtay runta iyo beentana intaas aan kaga fahmay